بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 17 November 2019 qasriga madaxtooyada dawladda Puntland ee Garowe xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay madaxweynaha ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash wafdi ka socda hay'adda ICRC oo uu hogaaminayo sarkaalka cusub ee ICRC ee u soo magacawday Soomaaliya York Eglin sidoo kale waxa wafdiga qayb ka ah mas'uuliyiinta ICRC ee Puntland kulanka waxa ka qayb galay saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda Puntland oo madaxweynaha ku-xigeenka ku weheliyay ICRC madaxda ka socota waxa ay madaxweynaha ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash uga warbixiyeen shaqooyinka ay ka hayaan guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland iyo waliba waxyaabaha ay muhiimadda siinayaan sanadka 2020 ee soo socda madaxweynaha ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa hay'adda ICRC madaxdeeda uga mahad celiyay shaqooyinka bini'aadantinimo ay ka wadaan deegaanada Puntland iyo sida ay muhiimadda u siiyaan inay ka jawaabaan dhulka ay baahiyuhu ka jiraan waxa uu madaxweynaha ku-xigeenku u gudbiyay ICRC in wax qabadkooda ay ku saleeyaan baahiyaha deegaanada ka yimaada sidii ay hadba uga jawaabi lahaayeen sida ay u kala muhiimsan yihiin aad iyo aad u mahadsantihiin